الله خيرا وبارك الله فيك. سائلك سقالات حولي يا شيخنا أنت بدن وحكى هذا الشان الرماح هوسة سيدا أستر كدمرك يحيى وحلمتك يدو أي ودن ككتيران دباتوين آدو بدن أو وين أو أي تهين لجهد له محايد إن دبر دقي دمرك والرماح وين آدو جهل ويدين. وشيكوين كسوشيال ميديا هو أورتا ومركب كوبادة صح معها الرماها عام كمحاد وجهد الذي وأرين روح ديدني وحيدا هل ديدني جيد كورجة تمويد سوالد لها لكن أمريكا نجا أنتوا أنا وحش الشيء جيني arrimaha ummadda noocyada kala duwan waxaan laga hadlin ma jiro baab aan laga hadlin ma jiro tuu siyaasad yahay aduu dhiig la daadinayo aduu koox qarriban ay yihiin hadii aafaad iyo masaayib ummadda haysato in muxaayila baraarjo wax laga qabto u baahan waxaan laga hadlin ma jiro wa khayru shaahid ala dalika waxa weeye social media hay tifka tahay laakiin dadka qaar waxa jira suu hurdo marbu soo booda hurdada ka soo kaca markaasuu hadda la yiri intuu ka qabsado buu wixii hore dhan kama warhayo uu hurday haddu marka hurdada ka soo kaca markaasuu leeyahay sheekhow intaad xijaabka ka hadlaysaan maad ka hadashaan dhiigan daadanay maad abaaraha ka hadashaan haddu hurdo ka soo kacay marka arrimaha caamka ah mid walba munaasabadeedii xilligeeda laga hadlaa waana laga hadli doonaa taa waa qodobka labaad waxa waaye maxaa dumarka idin daba dhigay jawaabtu waxa weeye dumar kaliya ma daba soconne rag iyo dumar waan daba soconnaa Soomaa dumarkan la radinayo waxa ka horeeyay rag far badan oo radinay soo saasma rag badan oo kawaanka saaran oo waxa jira diinta intay taabteen ayagana la galay baa jira siyaasiyiin baa ku jira aqoonyahan baa ku jira kuwaan habeen dhow ka hadlay soo saasma oo duuban tahay marka dumar kaliya maxaad uga hadashaan iyaduna war sax ma aha waa mid labaad ee mid saddexaad ee dumar oo dhan kama hadallee dumarka edabta daran baan ka hadalnaa oo dumarkii kalena nooga hiiliyaan waliba annaga kaliya kama hadallee dumarkii wanaagsanaana ayaguna way la hadlaan oo waa loo naseexeeyo mid kale iyadana meesha ku jirta waxa waaye marka la leeyahay arrimaha waaweyn maad ka hadashaan waxa arrinkaasi tilmaamaya fiqhi darro iyo faham xumi may tilmaamaysaa ummadda in diinta laga fitneeyo wax ka darani ma jiro ilaahay baana quraanka kariimka nassan ku sheegay wal fitnatu akbaru min al qatl wal fitnatu ashaddu min al qatl waa laba aayadood in ummadda diinteeda laga fitneeyo ayaa ka daran laynta iyo dilka iyo dhiigga daadanaya marka xijaabka ummadda in laga fasaadiyo oo akhlaaqda laga fasaadiyo oo shuruuc khariban loo dejiyo oo lagu ciyaaro ummadda diinteeda lagu ciyaaro baa boqol goor ka daran abaaro iyo naf dhimatay iyo muxuu ahay dhiig daatay waxa ka daran ummadda diinta laga fasaadiyo laakiin arinta waxa qariyaan idin sheegaya waxa qariyay waayahan dambe bini aadamkii oo dawladuhu u horeeyaan oo dadkii in badan oo kamid bulshadii fahamkoodii noqday waxyaalaha maadiyaadka ah baa kala muhiimsan diinta kala muhiimsan halkaas marka ku iimaanaysa diinta hadii laga hadlo yaani waxa waxa lagu leeyahay ma weyn laakiin arrimahan kale waa weyn war maxaa ka weyn diin la dhaawacay ummadda wax kale oo dhan way ka soo kaban kartaa laakiin diinteeda dhaawaceeda kama soo kaban karto saas daraadeed diinta oo la xifdiyo oo la ilaaliyo ومقصدك ugu horeeyo maqaasida sharciga